بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. برنامجنا وحن كجرنا وعيقلنت بالشدة موضوعا ما أنت وحن وهذلنا وملها سيد الله دسو حضاراتك يقيمها إليهن أسستا يكون أنت حضارة كستا ومن ذلك كستا حضارة ديسو ولا ليال حضارة مركز لك هذا عالمك حضارة الدولة ويكون سيهين وحلو لجيدا لبا قرب وين قرب كوباد وحواي حضارة وحي كوبانتهي جانب روحية أما معنوية مبادئ لغوضة دين تدكاسو إليهن رقمدا وناكسن إليهن التاريخ ذوضة مارتي مبادئ يكون سيهين العدالة الاجتماعية العدالة القضائية النظام دولد أوقاتي وكل مبدأ هذا استقرار كسياسي قد قناشد السياسات أقونت عافمات أقونت مارتي أقونت جود شريعة الإسلام في دين تيدا أخلاق وناكسن دعوة الإسلام وحصل لن وحيسو قليان الجانب الروحي والمعنوي للحضارة البشرية. حضارة البشرية جانب كذا معنوي قوي. وحيل هذا حضارة جانب مادة. جانب مادة أما جانب محنكو هذا وحيلها للتابن كرو ولا قبنا أو مقال كأه وحواي وجانب مادة. جانب مادة أنا حكوا كوبية هاي دولة نمدي مؤسسات كذا قابك الله قيبنا أرمها أمنية أرمها الدفاع دلك أرمها هرمرنت دلك ورشدين تيسا ودوين كيسا نظافة ديسا guud ahaan muuqaalka dalkaas bad iyo bari iyo jawi intaba waxaasoo dhan ayaa laga wadaa horumarinta laga sameeyaa laga wadaa isagana jaanibka xadaariga ah ee maadiga ah labadaas oo la isku daray ayaa xadaaro lagu kawanaa dowladuna ku hormaraan waa in mabaadi'da iyo akhlaaqiyadka iyo dhaqamada iyo taariikhaha iyo horumarka iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo maaragtay dowladnimada iyo dibudhiska dalka iyo waxa la yiraahdo infrastructure la yiraahdo ama maaragtay i'maar ad-dawla waxaasoo dhan ayaa waxa u baahan tahay in si garbasiman loo wado walidaalika ayuha alikhwa annaga taariikhdeena Soomaaliya xadaaradeena Soomaaliya waa xadaaro qadiima runtii aad u fiican dowladihii soo maray ee ka horeeyay dowladahan casriga ee lixdameeyadii xorriyadda markaan qaadan isticmaar baa ka horeeyay ka horna dowlada ayaa jiray oo boqortooyin kala duwan Soomaaliya ka maamulay xadaarad iyo wanaag badan ay runtii reebeen marka laga reebo fatradii isticmaarka oo iyadu qamciga iyo tamaca ajnabiga ku dhisneed ayadana dadka Soomaaliyeed waa ka dhigayeen watii dowladnimadii sanadkii xorriyadda Afrika loo bixiyay lixdameeyadii waa tan lixdankii aan ka xorowna marka maanta جانبك عن ربما مركز إن سجارة إيش أقول بفتح حواي قيمته أي كل سنة حضارة نجح الدولة وإلى هاي سيوارته وحياب إيش الوها يجت الله إلى محاكم ذا وحاكم ذا إن ضل كاس الإلالية دين تيسي مبادئ ديس أنا هدانا هاي الصومالية مسلمين بان هاي ولي مسلم سني هان هاي هدانا وحان هاي حق مذهب الشافعي هان هاي ضد وحان هاي اسكو مذهب اسكو دغنا اسكو لغة حزبت دحوي اسك خلافين وحاوي وهيداري يعني إن لو عيبي لما دوناي ضد المسلمين تدغن كاسمي يقانين وحكوا روايات الإله كلها بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بلايا دحوي وتعالى وحد مدائني مديسين قلوبتهم وصلنا ليسا يهود يا إلهي قرآن كوكو شاغي مسلمين توكدوا إيه dadka muslimiinta qalbigooda waa sufran yahay haday aqdaa isku arkaan si asluubay samay isugu sheegan marka mabda'an qabaliga oo daa'ifiga oo sagaashameeyadina dalkan inta lagu kacshay dawlad markaa fashilantay oo iska wasi dhacaysa qabyaaladii lagu kiciyo qabaa'il kulka loo qaybiyay oo la yiri iska dhacsha reer balad haystee ilaa hadda 30 sano soo gaarsiisay haddana dadaa wali luqadii burburka iyo baaba aan ka dhaxalna iyo argagixiso iyo dal dunsan iyo yani dhulmi iyo barakac iyo baraha inaan ku daadano iyo adduunka inaan ku dilowno wixii aad wada xumaanayo habeerate aan mithqala dharra wanaag aan laga dhaxlin ayaa wali dad luqada ay ku hayaan waxa sidoo kale marna aan banaanayn cidda talada markaas joogta iyaduna inay ku fikirto awood sheegasho iyo maxaan ku iraahdaa cabrin iyo xorriyadka dadka in la khasbo iyo ayadana ma banaana marka walaalayaal waxaan ku gabagabeynaa marka madaxdeena qaranka waxaan kuwa hadda jooga iyo kuwii ka horeeyba hal ixtiraamo ayada la caayay madaxweynayaasha hore meelaha Facebookyada dadka qaarkood ay ku aflagaadeynayaan hal iska dhaaf xataa kuwa dhinta la caaya محمد سياد برا العاية عبد الله يوسف العاية قرر كيس عبد القاسم الله حفظي عمري ويوين نجوم ياه وحكي الشيء جاي
madaxweyne cali mahdi qaar xataa tacsiis oo joogta maartay waxyaabaha meel ku qoran arkayna madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan sheekh niman dalkan soo shaqeeyo sharaf badan way waa madaxweyneyaal haddana waa tartamayaal waa dhici karta biri in midkood madaxweyne noqdo xaqayna u leeyihiin marka waxaa la doonayaa in la ixtiraamo madaxweyne hadda jooga hadda taladii uba hayaaba ilaa madaxweyne kaleeto bedela u yimaadaan asaga mandatekiisu weli waa nool yahayo faraaq lama ogola islaamkuna ma yaqaano nidaamka adduunkuna ma yaqaano weli isagaan taladii haya ixtiraamu dadku leeyahay waa waliyul amriga dalka asagana waxaa la doonayaa in la ixtiraamo marka luqadda oo ixtiraamka alla wuxuu qur-aanku leeyahay waquuluu linnaasi xusna dadka wanaag u dhaha waxaad ogaatiin qofkii dalkan maanta kadib colaad qabiil iyo cuqdad qabiil aan ka faafina yiraahdo ama siyaasi ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama shakhsi caadi ha ahaado waxa weeye waa nin yani cadowga soomaaliya u khidmaynaya soomaaliyana cadowgeedii isagaaba cadowga dalkan inuu burburo oo hadda kadib qoryaha laysu qaato oo qabiil waad ogtihiin dadkii qaraabada hoose ahay anugu waa ka dhashay markaasaan ka dhashay kow iyo sagaashankii maxamed siyaad barre iyo dowladdiisii militariga markii meesha laga ayagaa isku bilaabay kuwa ehelka ayaa isku bilaabay oo halka oday isku dhalay markaasay 30 sano isku taqlaalnaayeen markaasa ilaahay wuxuu qadaray iyagoon ka dagaalamaya waxba aysan noqon oo isku baaba'een in ciidamo Etoobiyana iyo maartay Abdullaahi sallallahu alayhi wasallam wata inay madaxtooyadan ayaga qofkii ugu horeeyay soo galay noqdaan oo Abdullaahi loo naxariistay asagoo kursiga ugu horeeyay ku fadhiisto dadkii iyagu siraaca maxaa yeelay luqadii lagu bixiyay maxamed siyaad barre siraaca qabliga ahayba haddana iyagu ku bixiyay haddana isku sii daray oo isku baabeen marka afkaas waa naga dhamaado shacabka Soomaaliyeedna yaan luqadaas laga gelin luqadaas udmaysa ma ahan kaliya doorashada in doorasho hufan la qaado talada ragga hadda hayana iyagu laftooda ay talada dhexda miiska ay si nadiif u dhigaan si sax loo qaado doorashada ayadoon ku shubasho iyo caburin iyo awood sheegasho aan lahayn oo qof walba aaminsan yahay sida maxaa yeelay ergada markay mareysana waa in si hufan qabaa'ilku soo xushaan markay baarlamaanka mareysana waa in si sax loogu tartamo qofkii xildhibaan noqonayo ama dibtaato noqonayo oo si nadiif u soo baxo markay madaxweynaha doorashada ay noqonayso waa in si nadiif loogu tartamo oo sanduuqa caday si hadda madaxweynaha jooga iyo kii kasii horeeyay ku soo baxeen in loo dhigo marka walaalayaal aan dhinaca ijaabiga ama positive-ka markasta aadna dhinaca negative-ka iyo colaadaha iyo cuqdadaha iyo qabiil watarka qabiilka dib loo soo nooleeynayo waxaan ku soo baabanay hana laga daayo diintuna ma ogola danta dalkuna kuma jirto ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkeena inuu hagaajiyo dawladdeena inuu hagaajiyo luqadda iyo khitaabka dadkeena iclaamka ama wararka baraha bulshada la faafinayana ilaahay dadkeena inuu afka u hagaajiyo ee qaabka hadda ay ku jiraan oo colaad horinta inta iska dhaafaan qaab dalka iyo dadka lagu badbaadinayo inay ka hadlaan ciidankeena qaranka ee sharafta badan wiilasha dhalinyarada gabdhaha dhalinyarada oo iyaguna maarta waxbarashadii iyo arrimihii maarta aqoonta ku jira iyo kuwa ciidanka oo maarta geesiyaasha oo furmaha taagan waxaa rabaa in niyadda loo dhiso geel loo qalo dadka gudaha joogay kuwa dibadda jooga meesha la aflagaadeen lahaa in geel loo qalo loo maxaan ku oraa mashxarado la soo dhaweeyo ciidan qaran waaye ayagu siyaasad shaqo kuma leh ayagu cid kastoo taladan la soo doorta ay ciidan u yihiin taasna waa in la ogaado oo aan amisom hana ilaaliso iyo amisom kalsooni siinayna iyo Soomaali isku aamin karna ciidankeeda runtu waa ceeb qofkii saas ku hadlana waa nasiib daro deegaanada aan militariga iyo booliska Soomaaliyeed ee qaranka uu leeyahay ummadda ka dhaxeeya aan la geyn qofkii ka yimaado siyaasi waa dhici karta inuu afkaas ku hadlo laakiin siyaasi ee Muqdisho jooga ee gobolada ciidanka Soomaaliya uu ka shaqeeyo jooga Baydhabo jooga Beledweyne jooga Jowhar jooga Galguduud jooga iyo Galkacyo jooga oo jooga maxaan ku yiraahdaa gobolada inuu gala jooga ma ahan inuu ku hadlo kuwa Kismaayo iyo Boosaaso iyo Garowe joogana ciidanka waa jecel yihiin laakiin duruufo ama hortaagan yawm min al-ayam ayaa ciidamada Soomaaliyeed dhanka kooban ayay xirooyinkoodii dabiiciga ah ay ku laaban doonaan hadii la yiraahdo marka ciidanka aflagaadada iyo niyad jabka laga daayo Soomaalinimada iyo Islaamnimada ha lagu midoobo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in